gadaasheedii nin baa taagnaa ilaahay amarka waxbaas ay taabanay maanta waxbaas ay xaantaynaya waa yaabana waxaas leeyahay gadaal maxaa kaaga jira عش رجبا ترى عجبا tan iyo muuqaalkan intuu isoo gaaray waa arrin meel aan u wada garan waayay taasoo aan jeclaystay in aan idinla wadaago idinkuna bal adila dharaandhirisaan run iyo been waxay tahay qaybta commentiga aad igula soo qortaan nin dhan oo gadaal kaa taagan oo wax kaa saaray gadaal sidee baadan u fahmi karin ma bahal baa kaaga jiro marada kuu galay mise see u fahmi la'daha adiga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام يا أخيرتي قيمها إيجا مضن مالو البادون كانت كجوكتان سكستا ومقال إيه موقيقو إذن سو قاريو ولكن عبد الله مع الحسين وعدك ودا سعوتان شانل كان نرورة شانل إيه بيش كفيسبوك أو كل النهاي إيه قروح ذا قويس كتير آذي أد ولا ليال ما انت وحان دونيا إنان إذن لو ذاقو موقال مال أن أوضو أنقران وعي من رنبا مبينبا ما بين كيسيس با ما وحلا سو أبابولا ما سحبي وأرنتان ودعضي ميل أن أوضو أيان قرن وعي هادي اللي يابو ياسينك سو حقرتين معها أن قبر الصوماليات وكسوغناد ودنك إنديا با waxay ka sheekeynaysaa arin iyada ku dhacday sida ay sheegayso bal marka qaabka ay waxan u dhaceen oo gabadhan Soomaaliyeed ugu dhaceen inagoo erey iyo qodob u dul istaagi doona baan rabaa inaan idin la wadaago idinkuna wixii talay tusaale qaybta commentiga aad igu soo qortaan dibna aan isugu soo laabano bal abay helay baan idinku duwayay muuqaalkeeda ila daawada Hyderabad baan ka baxay magaalada Delhi baan aaday magaalada Delhi meeting baan ku lahaa subaxyada kamida waxa ay ugu dhacday meetingkeenu soo dhawaaday magaalada Delhi waa magaalo aad u sawaaxan badan oo bismillaahir rahmaanir rahiim bas ma helaysid train ma helaysid ubarkeedana waa too much money marka train baa la raacaa badankood markaas train baa waxaan sugaayay muddo 2 saac trainka markaa sugaayay 2 saac oo kumbalada wala sugaayay saf baa lagu jiraa ummadda adduunka saf ku jirtay ummadda saf markii safkii markaa ku jirnay gadaasheedii nin baa taagnaa ilaahay amarka waxbaas ay taabanay maanta waxbaas ay xaantaynaya waa yaabana waxaas leeyahay gadaal maxaa kaaga jira bahal miyaa ku gal ilaa maanta dhinta fadhiday meesha baa isleeyaa waa yaaban yaabisa ka soo hartay ilaahay amarkiisa anoo abaar iska dul qaadanaya baa markii dambe saa gadaasheedu fiirin nin baa waxay saartay yaab anigii ama kaaga anoo yaaban oo afkii laba taaki yahay oo naxsan oo isku naxay baan qaxan ka dhacay meeshii tareenka lagu sugayay in tareenka meel buu soo maraa soo meeshuna waa hog tareenka uu soo maraa meeshii baan ku dhex dhacay anoo qaylinayo cabaadayo waa waran ku haya dad badan baa iga xigay gabdhii wiil isku jira ninkii baa lagu qayliyay anigi meeshii tareenka ku dhex jira ilaahay amarka tareenkii wuxuu ii soo jira wax yiriisa meeshii hal mar saal igala soo boodo anoo qaylinayo oynaya waxay leedahay tareen baan sugayay tareenkii marka tareenka la sugaayo waxay tiri meesha saf baa la galaa safkaasaan marka ku jiray dabcan dee markii wadamada la joogo hadda wadamadan anaga aan ku noolnahay oo kale markii safafka noocaas oo kale la galayo dumarkuna saf gooni bay leeyihiin ragguna saf gooni ay leeyihiin waa sida wadamada islaamka lagu yaqaan waaye laakiin iyada wadanka India maadaama ay joogto waxa la yiri rag iyo dumarku way isla istaagayaano waa la isdaba taagay marka waxay leedahay nin baa aniga idaba taagnaa gadaal baa marka waxay tiri waxba iga tataabanaya gadaal ma tilmaami kare gadaal baa wax iga tataabanayaan marka gadaal waxa iga tataabanaya waxaan kale fahmi lahay tiri ma bahal baa ku galay marada mise arrin kale jirta markii ay yaabtay oo ay leedahay marada ma bahal baa ku galay maxay tahay waxa intaan la eega kugu rikiban muddan dul qaadanay tiri muddo waxaan dul qaataba markii dambe markaan gadaal eegay baa waxaan arkay tiri nin saa ii dul saaray ayaan arkay tiri soo marka sheekada cajiibka waxay noqotay qof dhan oo damiirkiisu joogo oo nool oo taagan qof dhalinyaro ah magaalo jooga sidoo ku kala fahmi laayahay quraansho mara ku gashay ama macaan jecel ama wax la mid ah oo mara ku galay iyo tiir dhan oo lagu tiiriyay dadku waxay leeyihiin sidee u kala fahmi laadahay sheekada marka aniga Cabdullaahi ahaan markaan tayda qiimeeyo waa iga gedmi weyday waa iga gedmi weyday de mara waxa ku gali karo qof walba dareemi kara wariiri oo kale macaan jecelka oo kale quraanshada oo kale
waxyaalaha marada qofka u geli karo waa la dareemi karaa laakiin wax mobilkan ka culus mara ma geli karaa mara ma ku geli karo so gabadha marka waxay leedahay gadaal wax iga tataabanayaan wixii gadaal iga tataabanayaan waan fahmi waayey ma bahal baa marada ii galay arrintii waan kala fahmi waayey bay tiri sheekada ugu cajiibsan bay noqotay hadal haynteeduna baraha bulshada ay aad u qabsatay isla markaasina dhalinyaro fara badan oo rag iyo dumar isugu jiro Soomaali ah ay aad uga soo falceliyeen marka adiga markii aad sheekadan dhuuxday qaybta hore maxaa ka fahantay marada maxaa ku galay iyo nin baa daba taagan wixii aad ka fahantay qaybta commentiga ayaad nagu soo qori doontaa sheekada kale laakiin cajiib kale oo aan isleeyahay dad fara badan oo Soomaaliyeed way ka dhidhiyi doonaan ayaa soo socotee bal ila sii daawo ninkii baa la qabto ninkii baa la tumay waa la tumaan ku hindidii baa ku dagatay hal mar maxaa akhlaaq xumada ku watay inaan fooriyaan ahayna way ii jeedeen ninkii waxa la boolis ku wacnaa baa la igu dhahay boolis baa la wacay sheekadii boolis bay tagtay booliska baa imaaday booliska markay imaadeen waana la kaxeeyay aniga asagiiba ninkii okay marka booliska markay taagan tahay igu ekay inta kale ayaan dib ugu laabanayaa horta wadanka Hindiya marka laga hadlayo saqajaanimadaas way ka jirtaa xitaa mararka qaarkood waxa dhacda adiga oo bas saaran boon inta soo galo uu adiga isku ka aadinaya adiga hor istaagaya inta adiga hor istaago oo gadaal isugu ka soo dhajiyo buu hadhow qaylinaya markaas oo leeyahay saano ugu yeelay saraalku iga siibay saano ii sameey saano igu sameey waa been hadda uu masaakiin bas iska saaran baa nooca lagu sameeyaa marka wadanka Hindiya saqajaanimada noocaas oo kala aad bay ugu tiro badan tahay laakiin hadda waxa cajiib noqotay qof dhan oo damiir loo taagan oo ninu soo daba istaagay oo ninu waxaad aragteen uu ku sameynayo inay meel la soo fariisto ay tiraado ma bahal baa marada ku galan isir intaad meelaha fadhiday bahalka marada ku galayo qof walba uu dareemi karaa inta uu la egyahay neef ari oo socdo ma mara ku galay waxa mara ku galayo waa waxyaalaha yarirka quraanshada oo kale maxay ahto macaan jecelka oo kale aboorka oo kale waxyaalaha noocaas oo kale qofku waa laga yaabaa inay marada u galaan laakiin de waxa xaalkiis Ilaahay og yahay mara kuma geli karaan haddana waxay sii raacisay muddan dul qaadanaya waxyaalo cajiib ay noqotay so meelaha markaan isleeyahay abaayo waxoogaha waa sibqatay waxaa ka mid ah markii booliska loogu yeeray booliska markii loogu yeeray oo boolisku u imaadeen de dabcan qofkii markii loo imaado dhibanaha ah waa la wareysanayaa soo ma luuqadii ay iskula hadli lahaayeen ayaa waxay tiri waan isfahmi waayay bal qaabkii ay isku fahmi waayeen ayadan ila dhageysta boolis baa la wacay sheekadii boolis bay tagtay booliska baa imaaday booliska markay imaadeen waana la kaxeeyay aniga asagiiba ninkii aniga hindi kuma aqaani maxaa la oran jiray talagu kuma aqaani agaa baa English caliyaa la soo fariista waxba bay iska fahmeen bahindidana ma fahmaan Englishka hal xabo laba xabo Ingiriisana meel la soo fariistay tiri oo waxba aysan ka fahmeen hindidana ma fahmaan Englishka wadanka Hindiya English lagama fahmayo عش رجبا ترى عجبا هندي English waxba kama fahmayaan waa arrin kale oo nagu cusub waay waa sheekadii hadda ka hor mar waa idinkaga sheekiyay u maleynayay nin baa sagaaro soo dilay dadkii baa waxay weydiiyeen war sagaaradan maxaa u dishay qaabkeesa u dishay markaas wuxuu yiri waa marka koobaad oo baahi i heesan u dilo waxaan rabaa hilibkeeda inaan cuno haye waa marka labaad oo qaabkan u dilay hal xabad bas ay iga dhacdo yiri lugta dambe iyo dhigteeda ayaan halkii xabadna ku dhuftay markaas waxa la yiri uma eke u ekaysi ilaan sagaaro ordaysa dhigteedan iyo lugteeda dambe hal xabad kuma dhufan kartid uma eke u ekaysi baa markaas wuxuu yiri way xoqanaysay ayadoo saa u xoqanaysa oo jag iska siinaysa ma xabadii ku dhacday markaas la yiri hadda ayada u ekaysiisay marka walaashay waxaan leeyahay ka Cabdullaahi ahaan laba arimood waa ka diiday horta qisadan way dhici kartaa wadanka Hindiyana waxyaalahaas oo kale aad bay ugu tiro badan yihiin waa kugu raacsanahay in arintan ay dhacday laakiin waxaan fahmi waayay nin muddo idaba taagnaa oo wuxuu saa igu xoqayay ayaan kale fahmi waayay inuu bahal ii galay marada iyo inuu idaba taagan yahay baan kale fahmi waayay muddan dul qaadanayay kadibna markaan fiiriyay waxaan ogaaday nin inuu ila soo baxay macnaha waxa waaye waa waxay dadku qaadan waayeen anigu waxaan ka turjumayaa baraha bulshada qaabka looga falceliyay muuqaalka gabadhaas walaashaya waa qodob waa meesha dadku ay aad uga biyo diideen qodobka labaadna waxay dadku ka biyo diideen ciidamada booliiska markay ii imaadeen anigana waxay tiri luqadda Hindiga
dhowr luuqadood baa looga hadlaa waddankaas, luuqadaha looga hadlana ma aqaani bay tiri, laakiin English baan kula hadlay, ayaguna English way fahmi waayeen. teeda kale dhibaatada waddankan ka jirtana waxay tiri waddankan Englishka maba laga fahmaba, lagamaba yaqaan, lagagama hadlaba. labadaaba dadku way diideen, maskaxda qofkana way ka dhaadhici weyday, anigana way iga dhaadhici weyday. daawadeesha channelkeena Narura Channel geeran maayo qaabkay uga dhaadhici doonto. waddanka Hindiya lagama fahmo luuqadda Englishka aan other level waay. Okay, marka sheekada halkaa markay marayso waxay tiri abaayo waxaan u yeertay tiri wiilal Soomaaliyeed baa i caawiyey, wiilasha ay imaaday, wiilashii baa dabcan u kala turjubaanay ninkii Hindiyaanka ahaa, sidii baa lagu xiray. markii la xiray kadib waxaa la yidhi maxkamad ma u gudbinaa, maxkamaddana waxay tiri qarash weeyaan sii socodkeeda qarash kale kaaga baxaya, anigana waan iska cafiyay sina lacag ma haysto ayuu yidhi. sidii baa macnaha waxa weeyaan aan kusoo kala tagno, anigana aan ku cafiyey. so nuxurka sheekadan waxay tahay, sheekadan in badan oo idinka mid inaad daawateen waa laga yaabaa oo baraha bulshada aad ku aragteen, laakiin nuxurka sheekada aanu kala bixi karnaa waxay tahay waddanka Hindiya saqajaanimadaas way ka jirtaa, la iskuma haysto, way ka jirtaa. laakiin qof dhan oo dhalinyaro oo magaalo jooga, nin daba taagan oo waxa weeyaan intuu alaab oo la soo baxay la daba taagan, in ay kala garan wayda ma quraanja marada kuu gashay mise sheekadani sheeko ka weyn, moobeelka wax ka culus baa qofka saa u dul saaran, culeyskaasna ma dareemayo. inta halkaa fadhida miyay marada wax ku galeen? annagoo og dhalinyarada xilligan joogto dharka ay xiranayaan qaabka uu yahay, way isku kaayay qaban weyday. horta sheekada nuxurkeedu taa weeyaan, iyo waddanka Hindiya luuqadda Ingiliishka maba laga fahmaba. labadaas ayaa ugu muhiimsan. adiga marka sheekadan qaabka ay kula noqotay iyo wixii aad ka fahantay qaybta commentiga nugula soo wadaag biidnillahi alkariim. aad baa u mahadsantihiin. gabadha walaasheena waxaan leeyahay qalad ha iga fahmin, macnaha waxa weeyaan qisada way kugu dhici kartaa, laakiin qaabkaa u sifeysay oo aad noogaga sheekaysay qaab noo cuntamay ma ahe, sheekadaa ku celis ayay u baahan tahay, mar kale noogu soo celi. aad baa u mahadsantihiin. muuqaalka halka ayaan kusoo gabagabeynayaa, intaan ka lamida dib isugu soo laaban doono. ولكن عبد الله مع الحسين وحن ذكرت يا سيدة سين بتقليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.